way xusmay waayeen mu'aadan ahaan gurigayga anigoo alaabka qaadanaysaan loo burburiyey halaas sano konton sano meeshaan aan deganay ilmaan anaa lay ku dhal ilmihayga waa ku dhal insha Allah xaaladayda hadda bar ilmihii aniga waa kala dheernahay wax gacanta aan ku haayo haba yaraatee ma jiro in ka badan 50 sano ayuu ku noolaa gurigan ay ka burburisay dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo ku yaalay xaafadda General Daawud ee degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir gurigan ayuu sheegay aabahan inuu ku noolaa in ka badan 50 sano isla markaana uu ahaa mid dhaxal ah oo aabihiisa uu kaga geeriyooday waxaana uu wax walba halkan uu u yimaadaa gurigaasi uu u fiiriyo isagoo rajo ka qaba in mar uun gurigiisa uu dib ugu soo laaban doono waxa uu inoo sheegay inuu u haysto lahaanshaha guriga iyo sidoo kale dukumiin kasta oo cadeynaya inuu gurigan isaga uu leeyahay waa mu'adin masaajid oo in ka badan 40 sano ka adimaya mid ka mid ah masaajida ku yaala degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda ee General Daawud waxa uu sheegay in fanaaniinta la caawiyo balse culimada dhexdooda aysan iscaawinin fariin ayuu u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale cid kasta oo ku garabsi karta sidii dib ugu soo ceshan lahaa gurigiisa maadaama ay caruurtiisa ay ku nool yihiin meel banaan ah oo aysan haysanin hoy kale ay degaan xilligaana ay dad kale korfuul ay ku yihiin isla markaana uu xaafadda qol laga siiyay isaga xilligan uu ku nool yahay anigoo ah Cabdulle Maxamed Cali Cadow waxaa insha Allah ni sheegay insha Allah in gurigan 50 sano aan ku noolay aniga lagu dhalay aniga ilma ku sii dhalay insha Allah marka kulay dhaxlo ahay walaalahay waxay dhaheen adiga iska deganaa aniga ilaa muddada 50 sano anaa deganay marka ilmihii aniga insha Allah wuxuu ahay guriga waa ceebtayda ku asturneed way ku asturneed laba guri ijaara qaadi jiray ilmihii meesha ku biili jiray waana qadi jiray waana ku qoodi jirnay ummadna nama ogeyn ilaahay kaliya na ogaay marka ilaahay kaliya na ogaay marka arintii iyadoo saas waxa leedahay waxa noo imaaday kuwa ciidamada waxay dhaheen dokumentiga kay gobolka kay ama degmada kay waa keenay waxay okay waa leedahay haddana markaan tagnay haddana waxay dhaheen sida aniga muddo ugu wadnay waa la imaaday anigu ilmahayga oo ku jirno ilmihii yaa kala baxay alaabta saana loogu dumiyay insha Allah markaas waxaan dhahay 50 sano mu'adin ahay masaajid mu'adin ka ahay culimadii wax isku soo gurmadaan waa fanaaniinta mar kasta waa loo gurmanaya marka aniga waxa cil ay qabtay anigoo halaan sano waa la xusmay waay yani way xusmay waayeen mu'aadan ahaan culimo ahaan cadaabtii ka xishootay culimadii iyo dadka waayeelka marka waa la xusmay waaye gurigayga anigoo alaabka qaadanaysaan loo burburiyey waa adiga ilaa 7 qol ah ee masquul iyo jigab ah xaaladayda hadda bar ilmihii aniga waa kala dheernahay wax gacanta aan ku haayo haba yaraatee ma jiro wax aan gacanta oo ilaahay maana wax gacanta aan ku haayo ilmihii maalin kasta way sugayeen waxa baadiyaha jasiira geey marka ilmihii aniga waa kala dheer ilmihii wax uu ogaay male meesha waa qoodin waa qaadaneen marka labadaas qol ijaar asku madaan marka masaajidka mar ciidii ilmo waxa la aruuri jiray maana wax kale hadda gacanta ku hayo kuuri sharciyeysan u ahay hadda heer waxa gaaray hadda waxa tamiyaal u ahay gurigeyga guri oo hadda madaxweyne hadda dumin garin waayo tamiyaal hadda ma aadin dad badan aadin meesha ma aadin aniga meesha waxa aadi waay wixiga wax rasmi waay to gumbir mu dagin warqadii waa haysaa qofkii markaas oo yani meesha dhisto anigu wixiga marka dawladda oo helo wixii waa ku dacwoonaa insha Allah dareenkayga aad iyo aad yani oo isku bedelay nin oo waxsaan oo anigu filinayn oo wixii maalin kasta warqadii geey meel kasta waa geey warqadii anigu geey saan lay galay hal ciidna imaado qam saan lay gudum insha Allah marka taasna ma mudneen nin oo muwaadin ah halaan sano 50 sano meeshaan deganay ilmaan anaa lay ku dhal ilmihayga waa ku dhal insha Allah marka waxaan insha Allah waxa ka cusana wixii maqal iyo muuqaalkayga yaqaan inay insha Allah isaacadaan inay karab istaagaan hadii ay
نقطة حتى كوري أو مركل أو حسن يجد ما من ليس ليس إن شاء الله أو يجد ما من كوري إلمي يكون أولا إن شاء الله دولتنا وحفرين ودرا وأنا يعني أنا سان بربرسي وحيج أنا وحيج شرعي واي طبعا يلا واي مركب وحيج أنا يسوعليان سيدا ugu dhaqsiyaha badan hadda ilaahay ka cabsan waxaa ka soo doonay weli niyada ku haya guriga mana ka dheeraan aniga hal qola dad walaalahay meelaha iga siiyeen oo yani weli niyada ku haya mar kastaba subax kastaba waa soo booqdaa meesha marka anigii waxaa rabaa insha Allah inay meesha ila soo celiyo waxaana marka dad ka dad sa u gadan anigoo nool aa joogo meesha wabad aniga dawladda markeeda waa qaadan waa la jibiyay waxaan rabnaa yani waxayna amba waa dhisayna waa jidida bixinayna waxayna ina hadda marka xataa la helo waa in la dhisaa insha Allah aniga meela wax ka raadi ma hadii ay dhahay yani ay sameeyaan waxyaalaha ay sameeyaan hadda rungiin waxay si rasmi in lagu soo insha Allah oo yani waxyaalaha ay soo galgalin oo isla marka dhulkayga ayaga ii dhisaa insha Allah anigu meel wax ka dhisata ma waxa kale insha Allah waxa ka soconaya yani dadka maqal iyo muuqaalkayga dibad iyo jiro waxa ka codsanaa in la saacido insha Allah ilmahaas mar kastaba aanay isugayaan waa mar kastaba inaan wax u geeyo waxana gacanta kuma hay kuriina sana loo kale marka da waxa ka codsanaa kulli caalamka dhan dadka ka saayo culimada diinka inay karb istaagaan insha Allah la garab istaago oo